إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك ذليل. إلهي وقفت دموعي تسيل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بارك الله فيكم. وبرنامج كني أنت ورمضان adiga iyo ramadaanka oo aan uga hadlaynay waxyaabo guud oo qofka muuminka khuseeyo. maanta waxaan rabnaa inaan soo qaadano runtii qodob muhiim ah. bil ramadaan baan ku jirnaa. bishan waa bil lagu tilmaami karo bil qofka muuminka ah uu tababar ku jiro iyo qiimeyn iyo in uu ka nasto kaytoon bilo shaqooyinku soo qabanay iyo hawshu hayb inuu dib u fiiriyo kana nasto dibna u qiimeeyo, isla markaana uu gaaro meesha uu joogay ramadaanka ka hor, kadib inuu gaaro meel ka sarreyso, gaar ahaan dhanka cibaadadiisa, shakhsiyadiisa, xiriirku ilaahay la leeyahay, waxaas oo dhan. maadaama ay noocaas tahay, waxaa muhiim inaan tilmaano qodob ah maxay yihiin dhinacyada ay tahay in aan mowqifkan ka qaadanaya ama calaaqada aan leeyahay ama xiriirka aan leeyahay ay caddahay maxay tahay. waxaan ku soo koobi karnaa 4 dhinac. waa inuu qofka muuminka ah mowqifkiisa iyo calaaqadu leeyahay runtii u caddahay, wayna ka ahayn si in dhala'aana waa ama dadka sameeyo ama mowqif saas la yiri ayna ka ahayn ay ka tahay mowqif sax ah oo rasmi ah oo cad. waa inuu ka qaato calaaqadu leeyahay ay u caddahay. 4taas dhinac oo si kooban annaga u soo xulnay waxaa ka mid ah 1 adiga waana mid u muhiimsan. adiga iyo Allah subxaanahu wa tacaala khaliqi ku abuuray xiriirka idinka dhaxeeyo intee leeyahay. waa inaad bishaan ramadaan aad ilaahay fursad ku siiyay inaad soo gaartid, inaad qiimeyn rasmi ku sameyn kartid waxyaabaha meesha iska qiimeyn kartid iyo qodobada iyo tafaasiisha geli doona. laakiin muhiimaddu waxa weeyaan waa qodob muhiim ah oo qofka muuminka ay u caddahay mowqifkiisa ku aadan iyo calaaqada uu leeyahay Allah subxaanahu wa tacaala. waa inay mugdi gelaynin, waa inuu og yahay, waa inay u caddahay. qodobka labaad, calaaqada isaga naftiisa uu leeyahay iyadana waa qodob kale muhiim ah oo qofka muuminka ay tahay inay u caddahay naftaada iyo adiga xiriirka dhexeeya. quraanka meel badan lagu sheegay. qodobka saddexaad waxa weeyaan waa xiriirka dadka kale kala dhexeeya. waa inay caddahay oo inay mugdi wax ku jira inay haynayo waxaad ka qaadanaysaa mawaaqif soo dhan ay tahay mawaaqif runtii waadixa. qodobka u dambeeyo dadka qaar kuma daraan culimada qaarkood, laakiin waxaan u soo qaadanay muhiimaddu leeyahay waa mowqifka calaaqa dhimayno, laakiin guud ahaan mowqifka aad ka qaadanaysay shaytaanka iyo wixii lamid ah. yani quraankan lagu sheegay alagu noo cadeeyay, sidaa darteedna qodob kale muhiim ah. dhammaantood quraanka lagu sheegay, xadiiska lagu sheegay mid iyo wali si tafsiila. aayad مثلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. آياداس qofka kuwa waxa lagu tilmaamay muuminiintii inaad muumin tahay waa la sheegay. waa qodobka koobaad oo ah calaaqada adiga Allah idinka dhaxeeyo iyo xaqqa guud. waxa weyn waa iimaankaas iyo wixii ka farcamayo iyo wanaag naftaada. calaaqada kala dhaxayso waxa waa inaad ka ilaalisid inay aakhiro marka taga naar gasho, waa inaad badbaadisid adduun iyo aakhiro naftaada badbaadi. qayb ka mid ah calaaqada kala la soo qaato waa ahliikum la soo dhahay. sidoo kalena waxaa meesha ku jirto in ay calaaqada dadka ka dhaxayso ay runtii yani furuucyo badan waaye, laakiin farci ka mid ah la tilmaamay oo ah waa ahliikum inaad badbaadisid ahalkaada iyo qaraabadaada inaad badbaadisid. ummadda guudna inaad isku daydid inaad ka badbaadisid naar oo ka shaqaysidii rasuusha kale hawsha loo soo diray waa in noocaasayda inay badbaadiyaan. shaytaanka meelo badan baa lagu sheegay iyadana quraanka inuu qofka mowqif ka qaato. ina shaytaana lakum caduw fattakhiduuhu caduwan. fattakhiduuhu mowqifkaad ka qaadanaysid waa lagu sheegay cadow ahaan uu qaada lu dheh. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. marka waxa weeyaan shaytaanka iska ilaaliyo isna fidnaynin waa mowqif cad waa inaad ka qaadato shaytaankaas. sidaa darteed haddaad tahay qof muumina oo muslima yana kaa noqonin noloshaada nolol iska socoto. dadku way sameeyaan
dadku way soomaan, dadku way salaad bay tukadaan, dadku laa ilaaha illa allah muxamad rasuul bay dhahaan. macnaha waa inuu ka weyn yahay, waa inuu adiga cumqigaada iyo shakhsiyadaada yani daakhilkaada waa inaad isxisaabi kartid. waxyaalaha qofka kale waxaa ka mid qofka inuu si gaara oo marka qaarkood khalwo galo, inuu meel gooniya tago oo naftii la xisaabtamo. alkayisu man daana nafsah wa camila lima bacda almawt. qofka caqliga badan oo qofka naftiisii la xisaabtamayo oo qiimeynayo oo runtii miisaan saaray. afartaas aan soo tilmaanay tafaasiishooda waan geli doonaa, laakiin qodob waxaa jiro, duca waxaa jirto ama dikri waxaa jiro, kulmayn ayaa jiro. dikrigaas waxaa lagu soo diray adkaaru sabax bay ku jirtaa, adkaaru masaa bay ku jirtaa, adkaaru noo bay ku jirtaa. bimacnaa qofka muuminka waa inuu ugu yaraan 4 saac 3 jeer ka mida inuu dikrigaas akhriyo. allahuma caalima alghaybi والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بمعنى قيبت كوبات واحد أماني سا الله سبحانه وتعالى عدين سحرك على الحيو من الآمين سنتهي عالم الغيب إنه يهي فاطر السماء والسمران وحرن سجين أبوري رب كل شيء كستان إساقو إنه ليه وحد سيدو كلا كسي أتكيسي أشهد أن لا إله إلا أنت. يعني إيمان كذا إن تقيري سيد إنه يسير كل جيس وجرو وقضب قيبتك وبدون. أعوذ بك من شر نفسي وقيب لبعض نفت هذا وحي شر إن إلهي كما يقشت كان إلى لسيد قيب كلا كجرتو أن أجره إلى وأنا أختلف على نفسي سوءا. قيب كم يتعي دعاء سوء كان إن نفت هذا أنا ليبو كيني كان بل أدونك سبعون غنس. ومن شر الشيطان وشركي بعد عدو كجرتو إن الشيطان كي شركي سألك من قشت كين سكين إلى لسيد كنت لقشت من كل بعد دعاء علوسه قبيل أو أجره إلى مسلمين إن حمان أن قف مسلمة أن سبعوا نقضه أو سجيده وعلى قذا كان حيسو غير كذلك كلك على حيسو مركز صدق أفرتاس لنع وأفرت لنع يتهي بل بشهر رمضان يكجرنو ودانا يقضى المسلمين أو إلهي رميسان إن أن ميسك سو صاري كرنو قيمين كرنو مثل مركانا أن موقف iyo calaaqadana naga dhaxayso mid kastaba sidii ku haboon oo qaadano annagoo dabcan ilaahay kaashanayno kuna talagashan bishaan wixii ka dambeeyay inay nolosheena ay nolol ka duwan noqoto mid hadda ay tahay. wajazaakum allah khairan wasalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh. إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك ذليل. إلهي وقفت دموعي